maraykankii baa wuxuu soo diray maraakiib waaweyn oo badda istaagtay oo saadkiiyo sahayda laga soo gurayo Israa'iil lagu shubayo qaraar buu soo saaray dawladda Faransiisku soo saartay ay leeyihiin qofka ka hadla Falastiin arrinteeda ayida hadduu ajnabi yahay dalka waa laga mustaafurinaya hadduu muwaadin yahayna 5 sanadood baa la xidhaya hadduu iclaami yahay oo baraha bulshada wax ku qorana maadaama saameyntiisu ay badan tahay 7 sanadood xabsiga loo diraya Ingiriisku sidaas oo kale isaguna go'aankaas oo kale u qaatay masaajidada lagama hadli karo khudbad ku saabsan Falastiin iyo Xamaas banaanbax lama samayn karo sawirada gaariga laguma dhajin karo jarmalka way isku daraxsayn meeday xorriyadda sheeganay mee xaqi insaanku xorriyatu ta'biir mabaadida iyada ka mid tahay lahayn qofku inuu diintiisa iyo ra'yigiisa xor u yahay inuu cabiri karo isagoo wax ficil geysanay meeday taas waa qodob aad iyo aad u xanuun badan manaha wax la yaabee waa waxaynu gaalka ka filaynay ilaahay baa quraanka inoogu sheegay subxaanahu wa ta'aala markay muslim iyo gaal noqoto gaalku inuu isku dhinacayo uu soo safanayo باختلاف في الأديان يقول ديمها كل الدول حتى أرنت الله بعض حوي عالم الإسلام دولة الإسلام يضع يوصه الريان كوي عربات اتشارك الله حقاي مرين waxa heshiis lagu la galay oo laga saxeexay inta ku xeeran inay iyaguna xariga u geejiyaan gidaar bay yahuudu ku xidheeneen inay iyaguna xadkooda isa soo taagaan oo dadka waxagooda u qaxaana aanu jirin waxay ku caawin karaan aanay jirin way aqbaleen taana macbarkan xagga Masar looga gudbo ayaa dadka qaarkood ay doonaan inay sahay ka soo gaarsiiyaan madaafiic baa lagu riday meel alla meel dadka wax uga soo galaan 3 milyan ku dhowdhow ma jiro waxa aad iyo aad u cajiiba waxa la isla gartay marka horeba maca dawladaha jaarka ah cadawgooda ay islaynayaan inuu hayo laydhka iyo biyaha iyo cunada iyo dawada iyo waxay ku nool yihiin oo dhan waa tahta rahmatil adu cadawga islaynaysan oo inta ku haya maxaad u malaynaysaa kadibna intay cunadii iyo dawadii iyo laydhkii iyo biyihii ka jireen baa waxay leeyihiin dadka maxaabiista naga haysaan oo tobanaana ama u badnaa boqolaan iyaguna waxay hayaan dad ku dhow 10 kun oo qof maxaabiisteeda jeero soo deysaan laydh iyo biyo toon helimaysa adduunyadiina waa eeganaysa marka halka waxa inooga cadaatay ummadda in lagu heshiyo ibaada in dalkoodana la baabiyo iyagana laga takhaluso sababta dadkan sida loogu galaya maxay tahay waa afar arrimood arinta u horeysa waxa weeye waa tahjiir waxa la doonayaa si ay Israa'iil u qaadato dhulkooda ay ka qabsadeen in dadka laga qaxiyo oo la dhaafiyo markay dhimasho iyo dhaawac iyo gaajo oo arintu istaagto dadku waxay ku qasbeen inay dareeraan imika afar boqol oo ku banaanka u baxo banaanka taagan oo guryahoodii la baabiyo ololayaan meel ay ka baxaan ayay laayihiin marka tahjiirku waa arin istaraatiijiya agtooda in dadkii la qaxiyo oo dalkii loo baneeyo Israa'iil waana tii lagu fikirayay in la dejiyo meeshan Siinaa la yiraahdo yahuuduna halkan Falastiin ay qaadato qodobka labaad waxa weeye waxa la baadi doonaya Israa'iil al-kubra Israa'iil tii weynay halkan ardu Shaam way ka sii bilaabayaan laakiin sida mabdoodu ay yahay aqeedaysan waxa weeye Israa'iil la ballaariyo oo intay dadku degaan barigan dhaxeeya wixii ku dhowdhow la gaarsiiyo dadkooda intay degi jireen ama ay u qaxi jireen waxa kamid ah Hijaaz qaybteeda waqooyi ardu Shaam intii soo hadhay Ciraaq ila Iran waa yahuuda dajaal cawar oo ka soo bixi doona yahuuda Asfahan ila halkay degayn ila halkan ay maanta joogaan inta in la isku xiro sidaa daraadeed Israa'iil xad ma laha adduunyada kala dawladu xad bay leeyihiin
xadka Israa'iil waa la jiidaana bannaan waa kolba halkii la gaadhsiiyo taasina runtii wax badan oo cadaynaya jira aad bay Ciraaq dhulka uga iibsadaan jaaliyadaha u waaweyn bay ku jiraan waddanka Iiraan iyo maalqabeenka u badan maalmo dhaweyd waxa iclaamka ku jiro la soo daynayay niman yahuud oo yidhi waxaan u dalxiisaynaa madiina jaahkeeda geed timireed bay beerayeen iclaamkana way iska duubayeen waxay lahaayeen timirtii aanu beeri jirnay aanu madiina ka beeri jirnay waanu ka raagnay laakiin waa ku soo rogaal celinay taasina waa calaamad muujinaysa in la jiifiyaano bannaan oo la kala jiidayo Israa'iil arrinta saddexaad dadka loo baabiinayaa waxa weeye gaaladu dad diin la maahay waxay ku nool yihiin kibriya iyo isla weynaan iyo adduunyadu ay been u sheegeen beentoodii dad kooban oo mujaahidiin oo muslimiin ah kala tuuro kala kiciye ayaamahan aynu soo dhaafnay waxaad arkaysaa waxa la odhan jiray sirdoonka ugu cajiibsan waa ka Israa'iil tiknoolajiyada ugu badan indhaha ugu dhaadheer dhulka iyo cirka iyo meel walba wax ka arkaya tiimaada xagee u kacday xamaas baa intay kaariyoonayaal fuuleen dusha kaga soo degay haasheena yana tigta la yidhaahdee suuqa la wato barawaxad loo sameeyey ayaa tiknoolajiyadii ka badiso dusha laga soo dego badda laga soo baxay oo buur gidaarkiina waa la jabiyey tiibay la yaabsan inay leeyihiin sidee u dhacday 1300 oo qof sidee loo dilaa 4000 oo dhowdhowna loo dhaawacaa boqolaadna loo qabsadaa reer banu Israa'iil dawladaha waaweyn ee la saftay waxa fashilmay kibriyaagoodii iyo dadka beentii ay u sheegeen Ilaahay fashiliyay waxa afraad oo iyadana kalifaya dadkan in sida loo baabi'iyo gow laga dhigo waxba laga tagin xarbiga ama dagaalku waa dagaal caqadiya dagaal caqiido weey aw qaadan reer Falastiin dhulkan lagu haystee Qudus waxa isla waafaqsan yihiin kristanka iyo yahuudu inuu nabi ciise soo degayo marka muslimka laga safeeyo markaas uu nabi ciise imanaya inta ka horeysay kuwaasi joogaan muslimkaasi joogaan ma imanaya bay sida daraadeed waa in si loogu gogol xaaro ciise soo degitaankiisa waa in muslimka laga safeeyaa marka dagaalkii waa dagaal caqiide min ardiyo dhul ah ma aha